Asalaamu calaykum soo dhawaada saaxiibayaal. Maanta waxaan idin sharxi doonaa film action crime iyo dagaal ka kooban oo soo baxay sannadii 2020ka ciwaankiisuna yahay Bandicam. Haddaba daawo oo taxaddar. Bilowga filimka askari booliis ah ayaa galay maqaaxi. Askarigan wuxuu ku guda jiray howlihiisa caadiga ah ee rondada, wuxuuna u istaagay inuu iibsado kafee sababtoo ah roob daran ayaa da'ayay. Waxa uu galay gudaha si uu kafeega ugu cabo, balse halkan lagama soo dhaweyn. Telefishinka waxaa ku jiray war ku saabsan rabshado ka socday magaalada. Dadku ma aysan jeclaan inuu isagu halkan yimaado, oo waxay daawanayeen muuqaalka mudaharaad looga soo horjeeday musuqmaasuqa iyo maamul xumada booliiska. Xataa kaashiyeerka ma uusan qaadan lacagtii askarigan, isagoona sheegay inuusan halkan ku soo dhaweynaynin. Muuqaalka qaybtiisa xiga, askarigii waa iska baxay. Muddo kadib intii uu jid ku jiray ayuu arkay gaari uu ka shakiyey. Seeriga ayuu dartay si uu joojiyo isagoona arrintan la wadaagay xarunta kontaroolka booliiska. Waxa uu shitay kaamarada gaariga iyo mid xabadkiis ku xirneed. Markii uu gaariga istaajiyey ayuu naagtii saarneed ku amray inay soo degto kadib markii uu gaarigan ku arkay dhiig. isla markii ay naagtan soo degtay waxaa la maqlay askarigii oo qaylinaya kadibna hawada loo tuuray. Muuqaalka qaybtiisa xigta, filimka waxaana la geenayaa 12 saacadood ka hor dhacdadan, markaasoo haweeney booliis ah oo Rene Lomito la yidhaahdo ay fadhiday xafiiska taliyaha booliiska. iyadu waxay hadda ka soo laabatay fasax dhowr bilood ah kadib markii uu wiilkeeda geeriyooday. Saajinka ayaa ka dalbaday inaysan murugoon oo ay shaqadeeda sii wadato. ugu dambeyntii shaqada ayay si toos ah ugu soo laabatay oo waxaa lagu lamaaniyey inay la shaqayso askar kale. waxay aaday qolka isxog waraysiga halkaasoo isla shaqayn doonaan Danny iyo Casper. qof kasta oo ku faraxsanaa soo laabashadeeda, laakiin Rene kuma aysan qanacsaneyn inay Danny iyo Casper la shaqayso. muddo kadib markii ay rondadooda bilaabeen ayay arkeen cunug yar oo wadada dhex fadhiya oona keligiisa ciyaaraya. kaameradii ayay shidatay kahor intaysan u dhowaan. isla markiiba waxaa kusoo wada baxay dadkii dariska kuwaasoo booliis ku caraysnaa. Rene waa ay dejisay dadkan iyadoona u sheegtay inay keliya eegaysay inuu bad qabo. waxay dib ugu laabatay gaariga iyadoona Danny uu ku ammaanay kartida ay u leedahay inay dadkan dejiso. Rene waxay u muuqataa mid fahantay sababta uu qof kasta u caraysnaa. intaa ka bacdi intay sii socdeen ayay meel dhex istaagan si ay u baaran dhacdo qariib ahayd. waxay aragtay gaari booliis. waxay dib ugu laabatay gaarigeeda oo ay daartay laabtoobkeeda iyadoo kula xidhay kaamaradaha si ay u aragto waxa ku dhacay gaarigan iyo sargaalkii waday. laabtoobku wuxuuna tusayaa muuqaalka wixii ku dhacay sargaalkii aynu ku aragnay bilowga filimka kaasoo lagu magacaabo Kevin. waxay saaxiibo dhow ahaayeen Rene. way naxday markay aragtay muuqaalka gaarigii xamuulka cagaarnaa ee taarika la'aanta ahaa. dhan kale Danny ayaa soo laabtay isagoona arkay Rene oo ka walwalsaneed wixii ay aragtay. waxay eegeen hareerahooda wayna xidhan markii arkeen meydkii Kevin oo dhiig lahaa. booliis badan ayay waceen. saajin Casper ayaa yimid oo waxay u sheegtay gaarigii xamuulka ee taarika la'aanta ahaa ee uu Kevin istaajiyey. markii la weydiiyey sida ay tani ku ogaatay ayay sheegtay inay ka dhex aragtay muuqaalkii kaamarada gaarigiisa. wuxuu sheegay inay burburtay kaamaradaas oo ayna jirin wax ay duubtay. Rene waxay ku adkaysanaysay in aragtay naagtii dhibkan geystay. kooxdii ay tiiga xitaa ma aysan rumaysan warkeeda. Rene waxay iska aaday gurigeeda. ninkeeda ayaa weydiiyey sababta ay hore ugu soo laabatay. waxay sheegtay in saaxiibkeeda Kevin uu ku dhacay wax aad u daran oo ayna garanaynin wax sababay. way seexatay oo waxay ku riyatay wiilkeedii oo biyo ku qarqoomay. waxay mar kale dib u xasutay muuqaalkii kaamirada iyadoona ogaatay in naagtii ay muuqaal ku aragtay ay ku taalay calaamada sariibka. way kacday oo waxay go'aansatay inay daawato muuqaaladii wiilkeeda. isagu wuxuu ku dhashay cisbitaalle isla aslaantii ay ku xasustay haweenaydii dharka cagaarneed taasoo la sheegay inay Kevin dishay. waxay baaritaan ku sameeyeen naagtan oo Danny ay soo wadatay. waxay tagtay gurigii haweenaydaas taasoo kalkaaliye caafimaad ahayd oona dhowaan weyday wiilkeeda. waxay baareen gurigii laakiin waa ay yaabeen markii ay soo weerareen baranbarooyin duulaya iyo harka muuqaal qof la moodo. tani waa ay cabsi gelisay oo waa ay soo baxeen. muddo kadib isla gaarigii cagaarna ayaa yimaaday dukaan u dhowaa. naagtii gudaha ayay gashay oo waxay bilowday inay si qarsoodaha u dhigto wax aan la garanaynin. kaashiyeerka ayaa ka shakiyey laakiin wuxuu u oggolaaday inay dukaameysigeeda iska wadato. dhankan 2 xarfan ayaa gudaha soo galay oo waxay bilaabeen inay foodayaan kaashiyeerkii iyo naagta. isla waqtigaas 2 askari booliis ayaa arkay gaarigan oo waxay bilaabeen inay hareereeyaan. waxay heegan geliyeen xarunta kontaroolka oo gudaha ayay soo galeen. waxay sidoo kale halkaas ku arkeen naagtii dharka cagaarneed. qoryahooda ay ku qabteen oo dadka ay ka codsadeen inay isdhiibaan. mid ka mid ah xarfaantii ay xabad soo riday. isla markiiba hooska qof aan la aqoon ayaa soo muuqday oo bilaabay inuu dilo qof walba oo ay ku jireen booliiska. daqiiqadii xigtay Rene warkan ayay maqshay oo iyada iyo Danny ayaa meesha soo gaaray oo gaarigii baaray. intaa kadib gudaha dukaanka ayay galeen oo waxay arkeen qof kasta oo meyd ah. waxay eegtay CCTV kaamarada oo waxay aragtay wax dhacay. laakiin fiidiyowga ayaa tirtirmay markii uu Danny soo galay. saraakiil ka tirsan kooxda IT-ga ayaa yimid oo waxay weydiiyeen inay wax arkeen iyo in kale. waxay sheegeen in gaariga xamuulkan uu yahay mid ay tuuga soo dhaceen kaasoo bilooyin badan la lacsanaa. waxay kaloo sheegeen in nimanka xaday gaarigan ay yihiin nimankii Kevin dilay. Rene waxay Danny u sheegtay inaysan raggan ahayn kuwii Kevin dilay. Danny waa uu ku diiday warkan ay sheegaysay. wuxuu sheegay inaysan iyadu isku murjin waxa socda oo ayna berijilaaca iska dayso. markaas warkan ay iska intirtay oo waa ay soo baxday. maalintii xigtay waxay aaday qolka meedadka isbitaalka. dhakhtarku wuxuu sheegay inaysan weligiis arkin qof sidan oo kale loo dilay. waxay dhakhtarka ka codsatay inuu siiyo xoogaa daqiiqado keligeed ah si ay u baarto meedkan. waxay furtay taleefankii tuuga oo gudaha ay gashay. waxay sheegay muuqaal isagu duubay oo ay fahmi weysay.
waxay u qaadatay guriga oo ay heshay kaliib yar oo ay ku aragtay hooska qof wax u eg oo wax dili rabaa. tani xoogaa mar kale ayay ka nixisay. waxay baaritaan dheeraad ah ku samaysay kalkaalisadii waxayna go'aansatay inay hesho. maalintii xigtay ayay xafiiskii aaday waxayna arrintii haweeneydaas kala hadlaysay sarkaal sare oo baanda la yidhaahdo. waxay weydiisay mid ka mid ah kiiskiisii hore. wuxuu uga sheekeeyey kiiska wiil yar oo lagu magacaabayay demarco brans kaasoo ah wiil kalkaalso tanisha brans. wuxuu sheegay in kiiskaas caddayntiis la waayey oo iska soo xiray guriga. renee hurdada ayay ku dhibtootay oo ninkeeda ayaa ku khasbay inay ogaato wax tani sababay. maalintii xigtay ayay aaday xafiiska. waxay si tagtay adreska kiniisadii laga soo xaday baabuurkii xamuulka. waxay wadaadkii weydiisay in baabuurkii cagaarna oo taneesha amaahiyey iyo in kale. waxay u sheegtay inay og tahay inuu been sheegayo oo waxay uga digtay caqabadaha uu la kulmi karo. wuxuu waday meel gooni ah si uu tartiib ula hadlo. wuxuu geeyey qolkii marco oo u sheegay in wiilkaas loo dilay macandaro oo iyada ka dalbaday inay cadaalad u raadiso. wuxuu qoray adres guriga wiilkaas oo halkaas ayay aaday. markii ay gashay gurigan burbursanaa renee waxay heshay sawirkeeda iyo kuwa booliiska. waxay sidoo kale aragtay sawirka wiilka dhintay oo lagu dul wareejiyey xariijimo madow. renee waxay ku sigtay inuu soo weeraro harka qof aan la garanayn laakiin nasiib wanaag waa ay ka fakatay. waxay wacday daani si uu halkaas ugu yimaado. wuxuu ballan qaaday inuu saacad gudaheed halkaas u imaanayo si uu ayada u caawiyo. markii uu imaan waayey renee ayaa ninkan uga tagtay gurigiisa oo waxay aragtay isagoo meyd ah oo musqush ku jira. wuu isdilay oo wuxuu renee u dhaafay USB. daani wuxuu ka baqay in renee ay ogaato dembi uu isagoo ku lug lahaa. waxay daawatay muuqaalkii USB-ga waxayna hadda fahamtay wax walba oo dhacay. dhammaan booliiska la dilay waxay ku lug lahaayeen dilka wiilkii kalkaalisada kaasoo si qalad ah ay u dileen kadib markii uu iska dhagan tiray awaamirtooda. waxaa soo baxday in wiilku dhagool ahaa oo uu wadada nadiifinayay. booliisku si naxariis dar leh ay u dileen wiilkan iyagoo diiday inay qirtaan qaladkan ay sameeyeen. dhammaantood waxay iska kaashadeen inay dilaan wiilkan maskiinka ah ee dhagaha la'aa. renee waa ay usay intay muuqaalkan daawanaysay. muddo ka bacdi waxay kasoo tagtay meeshaas. renee waxay wacday saajin kasbar si ay ula kulanto oo ayna arrintan ugala hadasho. waxay sheegtay in daani holej uu dhintay oo ayna caddeemo badan hayso. waxay ku wargelisay halka ay joogto oo waxay ku codsatay inuu halkaas yimaado. daqiiqada xigtay waxay tagtay guriga tanisha brans oo magaceeda ay ku qeylinaysay si ay u soo baxdo. waxay sheegtay inay og tahay wax wiilkeeda ku dhacay. muddo kadib saajin kasbar ayaa yimaaday oo renee weydiiyey caddeemaha ay hayso. waxay sheegtay inay hayso muuqaalka wiilkii ay booliisku sida gardadaha u dileen. waxay aaminsan tahay in rabshadihii magaalada ka dhacay iyo 8 askar la dilay ee dubdhaxaad u ahayd arrintan. nasiib daro kasbar wuxuu hore u sababtay saraakiishii ku lug lahayd dilka wiilkan. renee waa ay fahamtay in isaguna uu ku lug leeyahay waxayna u caddaatay markii uu qori ku qabtay. intaa kadib wuxuu u kaxeeyey meel cidlo ah wuxuuna u sheegay inuu ka doonayo inay ka takhalluso muuqaalkaas. wuxuu ugu cagjuulayay inaysan isku dayin inay muuqaalkaas la wadaagto shacabka. baanda ayaa renee weydiiyey halkii uu daani joogo maadaama uu isagu hayay koobigii muuqaalkan. waxay sheegtay inuu dhintay oo ay iyadu hadda hayso muuqaalkaas. isla markiiba xabad ayuu ku dhuftay. nasiib wanaag kalkaalisadii ayaa soo muuqatay iyadoo la socota har bin aadam u eg oo qariib ahaa. waxay tana cabsi gelisay dhammaantood. kasbar wejiga ayuu ka feerayay kalkaalisadii laakiin harkii ayaa mar kale soo muuqday oo kasbar dilay. tanisha waxay renee u sheegtay in harkan uu yahay wiilkeeda demarco oona aysan awoodin inay xakamayso. sidaas darteed iyadu waa inay meesha ka baxsato. baanda ayaa isku daya inuu naftiisa la ordo laakiin ugu dambeyntii waa la qabtay oo la dilay. renee waxay markaan si toos ah u aragtay harkii makhluuqan. filimka ayaa ku dhammaanaya iyadoo shaqaalihii gurmadka ay yimaadeen goobtan iyagoona kasbar geeyey isbitaalka. dhammaadkii waxaana loo sheegayaa in kasbar uu ku lug lahaa musuqmaasuqa ay booliisku ku kaceen ee shirqoolkii dilka ay u geysteen cunugii yaraa ee demarco la dhahayay. waad ku mahadsan tahay daawashadaada. fadlan subscribe saar kanaalkeena si aad u hesho muuqaalo badan oo kanoo kale ah. mahadsanid.